dadkii ugu badnaa oo xalay rasaas riday xilligii curashada 26 Juun ayaa iminka waxa soo xiray booliiska gobolka Banaadir sawiradoodina waa kuwa idin muuqda dhammaan dadkan idin muuqda waxa soo xiray taliska booliiska gobolka Banaadir sababta dadkan lagu haystana waa in ay xalay xilligii ay saacadu isku bedeshay 12 ama 6 saac ee habeenimo ahaydna 26 Juun ay fureen rasaastii ugu badneed ayna qalqal galiyeen dadka ku nool magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya tan iyo saacadaas ciidanka booliiska gobolka Banaadir waxa ay baadi goobayeen sidii ay dadkan qof ugu soo qaban lahaayeen waliba qof walba loogu soo qaban lahaa looguna soo sawiri lahaa hubkii ay ku qalqal galiday ammaanka iyo sidoo kale bulshada magaalada caasimadda ee Muqdisho dadkan waxay isugu jiraan qaar ciidan ay ku jiraan qaarna waa shacab waliba haween ayaa ku jira ragga qaarna qoryahoodii iyo sidoo kale bastooladihii ay wateen xilligii ay qalqal gelinta amni wadeen ayaa lagu soo sawiray tani waxay muujinaysaa in dadka Soomaaliyeed ee ku nool Muqdisho ahna meesha ugu badan ee dad Soomaaliyeed ay ku nool yihiin in aan ciyaar ammaankooda lagu qalqal gali karin isla markaana mar walba booliisku ay u taagan yihiin sidii ay u qaadin lahaayeen tallaabo walba oo looga hortagayo in dadka lagu qalqal galiyo gudaha magaalada Muqdisho oo ay ku nool yihiin dadka ugu badan ee Soomaaliyeed isla markaana wax walba halkaasi ka dhaca ay bulshada ugu badan ay saameynayaan haddii halkan aad ila soo gaartay sidee baad u aragtaa tallaabada ay qaadeen ciidanka booliiska gobolka Banaadir ee ku aadan in ay guud ahaanba soo qabteen xabsina ku xareeyeen dadkii ka dambeeyay rasaastii ugu badneed ee xalay laga riday magaalada Muqdisho xilligii saacadu ay isu bedeshay 12 habeenimo ama 6 saac kana dhigneed 26 Juun 2025